dembigan caaw ka sheekaynayno waa dembi nin guursaday ka dhacay nin xaas ah ayuu dembigan ka dhacay oo zina ah shariicaduna meel adag bay dhigtay tusaale baan saxaabigan u soo qaadanay sida intuu dembi ugu dhacay ilaahay intuu ugu soo noqday iyo heerka abaalkiisa uu gaaray ee rasuulku ka sheekay sallallahu alayhi wasallam ninkaasi waa maaciz ninka la yiraahdo saxaabiga ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah maaciz waxa la yiraahdaa reer bani tamiimna waa lagu sheegaa inuu ahaa culimada kutubta taariikhda qorta reer aslamina waa lagu sheegaa aslami baas loo badan yahay inuu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam reerkooda warqad buu u qoray oo ugu baaqayo inay islaamnimada iyo diinta soo galaan ilaahayna sabab uga dhigay oo way soo muslimeen wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee dhagax lagu dilo shariicada islaamka gudaheeda intuu guur xalaal soo maray zinaystay dabadeedna ayuu ahaa maaciz ibn malik sanadka dhacdadaasi dhacday tolo waa goorma taariikhyahanadu waqti go'an oo dabdi aad uma sheegaan laakiin waxa la sheegaa waxa jirtay qof dumar oo ka dambeysay oo la oran jiray imra'atul ghamidiyya nusuustu ku sheegtay gabadhaas waxa la yiraahdaa sanadkii sagaalaad ama sanadkii sagaalaad aakhirkiisii ama wax yar ka hor ayaa gabadha la rajmiyay iyaduna waa ka horeysay waa gabadhii rasuulka u timi sallallahu alayhi wa sallam iyadoo uur leh salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo ay rasuulka ka codsatay in uu rajmiyo salawaatullaahi wa salaamu alayhi waa ay tiri sidii aad maacis u celisay baa doonaysa anna inaad ii celiso oo dabeetana uu yiri balato uurka soo dhig dabeetana ay umushay oo ilmihii ay keentay oo rasuulku bal soo nuuji ilmaha oo dabeetana markuu naaskii jaqayo de laba jir meelaha u yahay ay keentay subaxii dambe jab kimis ah ama jab jabati ah ay soo qaaday oo ay u dhiibtay oo rasuulka ilaahay aniga saaka wiiga maarmaayo waka halka ku ciyaarayo jabatigiisa iska cunayo haday la xadka la iga oofiyo maanta ii baahan maayo ee xadka halayga oofiyo fatahirni ya rasuul allah itahir rasuulka ilaahay dabeetana marihii lagu adkeeyay dhagaxiisaas rajmiga ah loogu sameeyay intaasoo dunuuba inaga ina ka dhacaysa haddana waqtiga maanta aynu joogno dad badan oo ina ka mid yihi dunuubta ka dhacaysa waxba lama aha waaba waxa dhacday xajka ayaa la xajiyay umradii oo la tawaafayo kacbada ayaa niman Soomaaliyo wada socda waxay arkeen dadkan eeshiyaanku wadadeen ka qalbi jilicsan oo hin badan inta badan niman eeshiyaan oo kacbadii maradeedii haysto oo aad u ooyayo ilaahay toobad iyo istighfaar weydiisanay nimankii bay isweydiiyeen marka Soomaalida ahaa ee wada socdeen ma laba ma saddex nin bay ahaayeen qiyaastii bal nimanka niyahow bal siday u haystaan kacbada maradeeda oo ooyayaan oo ilaahay dambi dhaaf u weydiisanayaan eeg inaga maxaa ina helay wax dareenaba malihiina waa sidee kii la socday baa yiri war ma dambigay galeen baad ogtay adu maxaad gashay يعني waxay tusinaysaa xogaa qalbi adeegeena bay tusinaysaa qalbi adeegeena inta waa dambaabayna qofku inuu ogaado dambigu ilaa saxaabadii waa dhacay heerarkiisa kala duwan ilaa inta dunida la joogana uu dhacaya qof nooc kasto bulshada kamid ka dhici kara laakiin hadhimanin oo godka ha gelin adoo dambiila ah in alla u toobad keent kullu ibn aadam khata wa khayrul khata'ina التوابون إن آذنوا دم وقفية لكن أنت قفتا وحا خير بدن كوا صنقشة بدن مركا قبل سي أهيد من كان صحابي ماعز أيام بالقصدي سربا إنان يردح قالوا سي أين إن شاء الله تعالى سفي عن الأدرينه يوحي بل أين أوران كرينه نبي ومساجد كدح فردية عليه الصلاة والسلام saxaabadiisii bartankooda fadhiya ayuu u soo galay ninkan saxaabiga ah dabeetana saxaabadu ay rasuulka dhageysanayaan oo la hadlaayo xaga muuqaalka nin gaaban buu ahaa maacis markay taariikhda kutubta siirada ka waramayso
وحوها رجل قصير من قابن بوها وصوقله وأن إتال وينين من اللحاد اللي ما هين يرو قابن وحق إتالك نسير بوها وصوقله أن ماكو أصوغ رسولك أويمي صلوات الله والسلام عليه ويسور تاقي أفر شرب رسولك كلا ددوان تؤيمي رسولك إله يو زنيت فطهرني وزنيستي إداهري وإنظيفي يعني الدنب وين وي أشرف الخلق هرتي سلقا قرنا صلوات الله والسلام عليه ومساجد لحدي وتاقيه يا رسول الله قد ظلمت نفسي وزنيت فطهرني نفتي ذا دلمي وزنيستي يطهر رسولك إلهي زند ودنب وين وعظيمة وجريمة وين وذنوبة إنسان قالوا عقوبات وين وأبار له وعذر له وبلايا له بكدعة وحين بعضنا إنسان كسهاشني نبينا صلوات الله والسلام عليه أمدي سآد بوجدك وعكم إذا حديثة صحيحة يا أمة محمد يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته حديث كبخاري مسلم صوصارين ومدي النبي محمدي إلهي بان قدارتي متشيرو أحد كغقي ربضا إلهي سبحانه وتعالى siduu uga qiiroodo in addoonkiisu zinaysto ama addoontiisu zinaysato siduu ilaahay uga qiiroodo sinaba caadi ma aha buu nabigu leeyahay salawaatu llahi inaba caadi ma soo uga qiiroodo addoon nin ragoo kamida muslimiinta ama qof dumar oo muslimaadka kamidoo zinaysata ilaahay siduu uga qiiroodo wax la mida ma jiro nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam rasuulku isagoo saa uga digay ayaa hadana ninkaas arintaasi ka dhacday uu leeyahay waa zinaystay iyo taahiri rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam alayhi yani waxa weeyaan zinadu waa dambi adag الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيات لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وضد يقال الإسرائيلي ساني هجورسو سانيدنا سانيده هجورسته ودم وين أو الشرائع دي إلهي سودة شيء أو دن حرام لماذا زندو أي حرام تهي أي سكوافقين هل شرعي هل كتاب إلهي سودة شيء كتبتي يرسوشي وصادري لغما أرق أو ضع وكلا بايدي وسكوافقين صحيح البخاري وحا كسوغان قصة يابله أيا كسوغان أو عمر بن ميمون ورينيو وحوليه هاي رأيت في الجاهلية قردة والقصة أي وحان أركي حتى حيوان كسي زندا ونعبهين وحان أركي جاهلية دي وحل كان رسولكو صابحين عليه الصلاة والسلام وحان أركي بولي عمر بن ميمون وحان أركي دانيرد ديك دانيرد بان أركي اجتمع عليها قردة دانير بدن اسقوي مادين قد زنت وزنيست دانير كقف يقانا بيرها iyo damiyigi waa lagu garanayaa waa xayawaanka ugu qiirada badan xagga wuxuu kamidey tan nolosha la wadaagta wax yar haday ka maqnaato oo ama geed ama kayn ama meel ay xagga ka soo marto marka ugu horeysaba wuxuu shayga ugu horeeyo uu sameeyo uu ursanaya xubinka taranku ka ursanaya xagganu kala wareegaya marka aad buu u ilaaliya daanyeerad baan arkay buu yiri daanyeerra isugu yimaadeen farajamuha oo dhagax ay ku dilayaan ayaan arkay markaas wuxuu leeyahay ninkan saxaabiga ah farajamtuha ma'ahum ana wala rajmiyay buu markaan fahmay inay daanyeer kale u dhuumatay waa u raaciyay buu aniguna ilaa nafta laga jaray waa garad Soomaa waxay tusinaysaa mas'aladan xitaa xayawaanka agtooda sida ay ku tahay bay tusinaysaa wazinimo wazinadu waa ceeb wa an aadhum adduunkana waa ceeb iyo dulli aakhirana waa cadaab waxa garanaysan xadiiskii Bukhari iyo Muslim Samurah ibn Jundub radiyallahu anhu wardaa rasuulka markii la guureysiyay ama la dheelmiyay waatu rasuulku sallallahu alayhi wasallam innahu atani al-laylata atiyani habeenkii xalay ahaa laba malag baa iihimi wa innahuma ibta'athani way kaxeeyeen labadii malag wa innahuma qala li intaliq
waxay yidhaahdeen soco wa innii inطalaqtu aniguna waan socday macahumaa anigoo la jira fa ataynaa calaa mili tannuur waxaanu soconnaba waxaan nimi tinaar baanu nimi baalka moofada lagu dubay roodhida tinaar dushii baan isa soo taagnay faidaa fiihi laqatun wa aswaatun mise tinaarka gudihiisa waxaa ka baxaya buuq iyo cod iyo qaylo ayaa ka socota faطalacnaa fiihi waa qooraansannayoo saasaanu eegnay faidaa fiihi rijaalun wa nisaa'un curaatun mise waxaa ka buuxa dhexdiisa rag iyo dumar qaaqaawan rag iyo dumar qaaqaawan baa meeshan ku jira waidaa hum ya'tiihim lahabun min asfala minhum xagga hoose holoc iyo dab baa kaga soo kacaya markaasaa dabkaa iyo holacaasi say uga cararayaan isna uu dabada uga jiro bay afka ku soo dhowaanayaan tinaarka afkiisii bay ku soo dhowaanayaan faidaa ataahum dalika allahabu dawdaw marka ay dabkaasi uu ku yimaado waa qaylinayaan waa cabaad iyo qaylo markaasaan faqultu ma haaulaa'i waa maxay kuwan qaala fainahum azunaatu wazawaani waa raggii iyo dumarkii dunida kala zinaysan jiray dumarkii raggii zinaysan jiray iyo dumarkii zinaysan jiray waa sidan xaaraan bay maryaha isugu dhigteen caaisha markii aakhire rasuulku ka warramayay iyo mowqifka ilaahay hortiisa dadku waxay soo istaagi doonaan iyagoo kabala iyagoo maryala iyagoo aan gudnayn iyagoo caynkan ah waatuu rasuulku ku salawaatullahi wasalaamu calayh caaisha marka waxay tihi rasuulka ilaahayow dadka intaa tira la eg ee bannaanka la isugu saaree qaaqaawan miyaanay rag iyo dumarku cawradoodu isu muuqanayn caaisho arrinkaa waa ka adag yahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee waa caaisha waa runteed dareenka qof walba cabiri kara weeye maanta maxaad moodaa iyagoo dhar sita dadkii loo kala taaglaaya taas waaba qaawanaan la sheegay oo arrinkeedu adag yahay dunidan maanta aynu joogno iyagoo raggiina marya xidhan yahay dumarkiina marya xidhan yahay baa haddana zinadii socotaa oo loo kala taaglaayahay oo la ysku qarsanaya marka zinadu heerkaasaa shareecadu gaarsiisay maacis radi allah xadiiska bukhaari baa wariyey maacis radi allahu tacaala canhu waatuu nabiga majliska ugu yimid zanaytu fatahirnii waa zinaystay taahiri nebigu waa eegay sal alla alay slam wayxak irjic fastakfiri illaaha watub ilayh war hooge war orodoo dib u noqo oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo alla u toobadkeen waa noqday dembigii uu galay ayaa haddana qalbigiisii gubaya mise waa kana haddana waa soo noqday ila nufuus bay ahaayeen ilaahay rumeeyey oo rabbi ku xidhan oo aakhiro og oo dembigu ay galeen dareenkoodu iimaanka ku jira ayaa wax badan xanuujinaya oo shaytaanku qofka waa gefka iyo dembiga uu kuu soo jiidaya laakiin ina aladiina taqow idaa masahum taa'ifun min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun marka waa in waad gefaysaa laakiin markiiba inaa isqabata war maxaa kugu dhacay war balaayada ku qaaday waa maxay war seen noqotay war balaayaa kugu dhacday waa ku sugay war alla u soo noqo alla u toobadkeen caynkan waa inaad tidhahdaa idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allaha fastakfaruu lidunuubihim marka haddii xuma dhaco waa in durtaba ilaahay loo soo noqdaa subxaanahu wa tacaala ninkii maacis radi allahu canhu waa soo noqday yaa rasuula allahi tahirnii waa mar labaad rasuulka ilaahayow idaahiri dembi baan galay iga nadiifi wayxaka irjic fastakfir illaah watub ilayh war hooge orodoo noqo oo war ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo toobadkeen orod waa noqday waa ishayn waaya haddana wixii ka dhacay buu dareemayaa waa soo noqday tahirnii yaa rasuula allah su-aasha marka isweydiinta le waxay tahay waa maxay qoomamada iyo shallaytanka intaa la eg uu la fadhiisan la'yahay ee saxaabigan wada waa dareenka dembigan uu dareemayo inta uu la egyahay iyo towbaddan ilaahay inuu u soo noqdo uu rabo towbad saadiqa ah buu rabo alla inuu u soo noqdo oo nasuuxo ah oo ilaahay uu ku jeclaado subxaanahu wa tacaala mar saddexaad buu u yimid tahirnii yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo taahiri waa dembaabe mar afaraad buu haddana u yimid nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii afaraad baa rasuulku marka su'aalo weydiiyey wuxuu ku yidhi su-aashii u horraysay
fiima utahiruka maxaan kaa daahiriyaa bal waxna aad ka cabanayso aan marba aad leedahay iga daahiri iyo kayskan aad gashay muxuu yahay qaala min azina zina iga dhacday rasuulku sallallahu alayhi wasallam saxaabadii buu su'aal weydiiyey wuxuu yidhi abihi junuunun war ninkani wax waali ah miyaad ku ogeydeen anuu meerqab baan ku ogaayay wax xanuuna miyuu jiraa oo la soo darsay markaasay yidhaahdeen nebigu sallallahu alayhi wasallam laysa bi annahu laysa bijunuun wax waali ah ninkan ma hayso su'aal waad buu weydiiyey wuxuu yidhi ashariba khamran tolo ma khamri buu soo cabayo xoogaa miyuu dawaqsan yahay oo maxmiyaa si ka ah nin baa kacay raggii ka mid ah wuu ursaday in la baarqo baxa qarmoon oo uraya weeye wuu ursaday bal in khamri soo cabay urtiisi laga dareemayo wax khamri ah iyo badaaba nin galay ma aha waa ninka nadiifta ah markaas nabiga su'aal saddexaad ku celiyo wuxuu ku yidhi azanayta war miyaad sinaysatay faqaala nacam haa markaas rasuulku wuxuu ku yidhi sal alay wasalam su'aal afraad buu weydiiyey lacallaka qabalta war waxaa dhici karta inaad dhunkatay baa dhici karta aw ghamasta ama inaad taataabatayoo aad tuujisay baa dhici karta aw nadarta ama inaad eegtayoo isha u jebisay baa dhici karta qaala laa yaa rasuula allah may rasuulka ilaahayo intaa midna maaha waa ka sii fog tahay su'aal shanaad buu weydiiyey wuxuu ku yidhi fahal tadrii ma zina zinadu waxa ay tahay ma garanaysaa horta bal ii qeex zinadu waxay tahay bal ii sheeg nacam ataytu minha xaraaman maa ya'ti arajulu min imra'atihi xalaalan xaaraan baan ugu tegey sida ninku xaaskiisa xalaasha ugu tagoo kale su-aashaas markaasuu wuxuu yidhi xubinkayga taranka iyo xubinkeeda taranka ayaa sida wadaanta ceelka loogu rido ugu dhacay yani wuu qeexayaa wuxuu rabaa in arrintu ay ka dhacday inuu caddeeyo rasuulku sal allahu alayh waali wasalam markuu intaa sheegay oo dee waa qirasho meeshii u dambaysay buu qirtay ayaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dahirnii uu leeyahay ayaa rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam xadkii waa in laga oofiyaa god ha loo qodo god baa loo qoday ilaa maxaan ku idhaahdaa miskihiisa ama halkaas simaha ka yara sarreeya xoogaa baa loo qoday hala rajmiyaa rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh dhagax lagu rajmiyo waa la rajmiyey maacis dhagaxii baa lagu bilaabay shareecadu waxay uga gol leedahay qofka guur xalaala soo mara iyo qofka aan soo guursanee zinaystaa way kala duwan yihiin qofka zinaystay aan guur xalaala soo marin isagu waxa kan waa markii ugu horreysay dee waxba kama yaqaano sidaa awgeed shareecadu in boqol shaabuug oo dhangadood lagu dhufto xabsina la dhigo ama la masaafuriyo ayaa shareecadu ay sugtay haddii ninku guur xalaala soo maro oo macaanka uu guurku leeyahay rasuulku ku sheegay shahru casal bishaa hore ee guurku inay tahay bil uu rasuulku ku masalay malabka oo kale macaankii xalaasha iyo guurka ee uu soo maray ee jidhkiisa tin iyo cidhib wada gaadhay hadduu ka dambaysiiyey macaan kale oo xaaraan ah waa in xanuun looga dambaysiiyaa tin iyo cidhib wada xanuujiya waa in looga dambaysiiyaa waana aayad qur'aan ayay ahayd qiraa'adeedii la nasakhay alshaykhu waalshaykhatu idaa zanayaa farjumuuhum albatta aayad qur'aan ay ahayd akhriskeedii waa la nasakhay laakiin xukunkeedii wuu yaallaa maanta qolo ayaa waxay tidhaahdaa ama kuwa cilmaaniyada ama dadka diinta ka soo horjeeda waxay idhaahdaan markay hadlayaan dadku hadday wax wada xadaan oo gacmaha la wada gooyo oo haddii ilaahay idmaayo ay zinaystaan oo qaar shaabuug lala dhaco iyo ul la karbaasho oo qaar dhagax lagu dilo ummaddaba waa la dhammaynaya waxaa laga dhigayaa dad wada patient ah wax dhakhtar jiifa wax dhintay wax gacmo googo'an yaa u shaqaynaya leeyihi jawaabta loo celinaya waxay tahay dadka oo dhani ma zunaadba miyay zinaystaan waa midh yalla waxa sinaysanaya dadka oo dhani ma tuuga waa maya midh yallaba way waxa tuugta haddii mid gacan la joogo waa laga wada carari lahaa bahasha
dadka oo dhan ee xaafadaha iyo xaasaska soo wada maray miyay wada zinaystaan kuwa aan weligood guursan miyay wada zinaystaan waa maya waa midh iyo laba weeye sidaa awgeed baa rasuulku sal alla alay wasalam ninkii saxaabiga xanuunkii dhagaxii ku dhacay jirkiisa ayuu carragod ka soo booday dabeetana waa la baaciyey nin kaloo ka hor yimidna dhagaxii baa lagu dhuftay adigu ninkii nafti baa meeshii kaga baxday saxaabadu way isweydiiyeen dhacdada meesha ka dhacday iyo sida wax u dhaceen ayaa saxaabadu eray bixintoodii way isyara weydiiyeen mid canaananaya iyo mid ammaanaya ayaa hadalkooda marka axaadiista aad fiiriso ayuu noqnoqonayaa qaar waxay yidhaahdeen halaka maaciz wa axaatat bihi khati'atuh maaciz waa dhintay wixii khalad ee ahaa ee u galayna waa haleeleen oo waa koobay qaar waxay yidhaahdeen towbad uu maanta toobad keenay maaciz toobad la midaba maba ay jirto nebigu sal allahu alay wasalam wuu soo baxay markaasuu faallo yaroo kooban ka bixiyey maaciz ibnu maalik iyo rajmintii la rajmiyey wuxuu nebigu yuri sal allahu alay wasalam istakfiruu limaaciz ibni maalik maaciz ibnu maalik ilaahay dembi dhaaf u weydiiya faqaaluu gafara allahu limaaciz ibni maalik markaase waxay yidhaahdeen maaciz ibnu maalik allaha u dembi dhaaf rasuulku markaasuu wuxuu yidhi laqad taaba maacizun tawbatan low qusimat bayna ummatin lawasicathum ninka maaciza wallaahi wuxuu toobad keenay towbad haddii ummad dhan oo ilaahay abuurtay oo arla degan toobadiisaa qof qof loogu qaybin lahaa ku filnaan lahayd buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam toobadiisaa ku filnaan lahayd ummad dhan sida ummadda soomaaliyeed oo kale sida ummaddan kiiniya oo kale ummad dhan oo ilaahay abuurtay ama kaba badan dee haddii loo qaybiyo qof walba waa ku filnaan lahayd towbadda marka uu qofku toobad keeno uu ilaahay u soo noqdo alle wuu kugu jeclaanayaa duu kaa toobad aqbalayaa waxaadan filayn oo aad u qiimo badanna waa ku siinayaa waa garanaysaan xadiidkii uu towbadda rasuulku masalka yaab kale ka bixiyey nin sadcaala oo dhul bahgooye ah oo aan baadiya biyo lahayn oo geed la harsada lahayn nin socda oo neef geela wata awrkiisii sahaydii biyihii u saaran yihiin inuu soo maray oo dabeetana awrkii u saarnaa raashinkiisii biyihiisii wixii uu ka fakaday oo ka baxsaday intuu raadiyey ka quustay dabeetana geed meesha ku yaalla intuu iska yimi hoos seexday oo uu yidhi kollay socod iyo caga meel ku gaadhi mayside geedkaas naftu ha kaaga baxda hoostiisa adigoo jiifa waxoogaa ka bacdi markuu indhaha isku qabtay mise waa neefkii ka baxsadayoo dul taaganoo hoggaankiisii iyo xadhiggiisii uu laadlaado farxad daraaddeed intuu booday ayuu hoggaankii qabsaday markaasuu wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka akhطa'a min shiddati alfarax buu nebigu yidhi ilaahu adna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaa baan ahay muxuu doonaya inuu dhaho ilaahu adna rabbigay baa tahay anna addoonkaagii waa kugu mahad haddaad ii soo celisay yacnii farxaddii ka badatay awgeed ayaa erayadii ka soo baxayay xitaa ayuu maaragtay hadallo waaweyn oo khatara ku hadla toobadda ilaahay saas ugu farxaya markaad wax shay macsiyo ah ka toobad keentidna ogow wax ka fiican baa ilaahay kuugu bedelaya wax ka wanaagsan baa ilaahay kuugu bedelaya rasuulku wuxuu yidhi weli saxaabigii buu kasii sheekaynaya laqad ra'aytuhu yatakhadkhadu fii anhaari aljanna wallee waxaan arkay isagoo webiyadii jannada sidaa ugu gadgadoomayaan arkay jannada intii webiga ku taallay isagoo kolba mid kan caano ka cab kan biyo ka cab kan malab ka cab kolba mid isagoo u wareegaya ayaan arkay riwaayad kale waxay tidhaa waladii nafsu muxammadin allaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye innahu layanghamisu fii anhaari aljanna wuxuu dhex mukhuuranayaa oo dhex dabaalanayaa ee ku dhex jiraa webiyadii jannada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa qiimaha uu toobadkeenku leeyahay
oo dunuubta haddaynu ka toobad keenno jannaynu helaynaa weeye micnaha ilahay intuu toobadeenna aqbalo ayuu janno ina siinaya maacis noqnoqoshadiisii dembigii uu galay ee qalbigiisa gubay ee daahiri uu lahaa waqti kooban dabadeed heerkaasa ilaahay gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay addoomkiisa cid uga naxariis badan markuu u toobad keeno ma jirto dembi kasta oo aad gasho gaalnimoba ha noqote ilaahay waa kaa toobad aqbalaya subxaanahu wahuwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih ilaahay axadka addoomihiisa ka toobad aqbalo wey sidaa awgeed intaa waynu dembaabaynaa waa gafaynaa waa khaldamaynaa gooraynu dhimanaynana ma ogin hadda iminka waxaynu tukannay maqrib waxaynu rabnaa inaynu haddii alla idmo cishihii tukanno goordhow qof ina ka mida oo huba ma jiraa isagoo nool inuu ilaa cisho gaarayo oo tukanaya aniga idinla hadlaya ma hubo idinka imaqlayaana ma hubtaa geeridu intaas inoo jirtaa kabta aad gashan tahay ee suunkeedu fartaada iyo suulka saaran yahay geeridu waa idinka dhowday buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adoo socdaad dhiman kartaa adoo fadhiyaad dhiman kartaa adoo taagan baad dhiman kartaa adoo jiifaad dhiman kartaa muhiimaddu waxa weeye waa dhiman oo geeri waa lama huraan laakiin adigoo ilaahay ku xidhiidhsan oo waddadiisii ku toosan geeridu ha kuu timaado ku talagal inaad dhimanaysid weli wakhtigan maanta la joogo waa aakhiru zaman mowtulfajcu waa badan yahay geerida lama filaanka ah ee ilaahay nebiga uu ka magan geli jiray nebigu ilaahay ka magan geli jiray ilaahu mowtulfajca baan kaa magan geli oran jiray way badan tahay maanta sidaa awgeed baa dhimashadu badan tahay oo mowtulfajc uu badan yahay qof walowba adigu bal waxaad isku daydaa inaad toosnaatid ilaahay iyo adiga xiriirka idiin dhexeeya bal hagaaji haddaad hagaajiso wallaahi haddaad hagaajiso adiga iyo ilaahay xiriirka idiin dhexeeya adiga iyo xaaskaaga xiriirka idiin dhexeeya waa fiicnaanaya adiga iyo caruurtaada xiriirka idiin dhexeeya wuu fiicnaanaya adiga iyo deriska adiga iyo waalidka adiga iyo qaraabada adiga iyo bulshada ku dhex noosha wuu fiicnaanaya